bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeenay idaacadda kulmiye qodobada caawa aan idiin diyaarna waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo dalbatay waaran caalami ah oo lagu soo xiray wasiirka amniga Jubbaland oo caawa gaaray magaalada Mandheera madaxweynaha cusub ee Galmudug oo la kulmay saraakiisha ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo sheegay inuusan aqoonsaneyn doorashadii madaxweynaha loogu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor shil gaari oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 qof oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Burco ee gobolka Togdheer safaaradda Soomaaliya ee dalka Shiina oo faahfaahin ka bixisay xaaladda Soomaalida ku nool magaalada Wuhan oo uu ka dilaacay caabuqa coronavirus dawlad goboleedka Jubbaland oo sheegtay in dhammaan ciidankeedii ku biiray dawladda ay dib ugu soo laabteen maxkamad amartay in la soo xiray madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma iyo dadkii ugu badnaa oo ka qaxay gobolka Idlib ee waqooyiga Syria waaran caalami ah oo lagu soo xirayo wasiirka amniga Jubbaland oo caawa gaaray magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya sida faahfaahin warkan ku saabsan oo inoogu qaada dhigayo Farxaan Maxamed Xuseen dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay waaran caalami oo ay ku dalbanayso in lagu soo gacan geliyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo 18 bishii Janaayo ka baxsaday xabsi uu kaga jiray magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay arrinkaasi xiriir kala sameysay hay'adda booliiska caalamiga Interpol sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay arrinkaasi xiriir kala sameysay hay'adda booliiska caalamiga ah Interpol si loo maxkamadeeyo wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo lagu soo eedeeyay dambiyo la xiriira tacdiye ka dhana xuquuqda aadanaha sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay dhigeeda dalka Kenya ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo qabato una soo wareejiso wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan arrinkaas oo xoojinaya cadaaladda heer gobol iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo adkeynta xasiloonida ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliiska Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay oo aan ka helayno wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa waxay sheegayaan inuu gaaray gelinkii dambe ee maanta magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya kadib markii maanta uu tagay gelinkii hore magaalada Beled Xaabe ee gobolka Gedo dad ku sugan magaalada Beled Xaabe ee gobolka Gedo ayaa inoo sheegay in wasiirka amniga maamulka Jubbaland uu aaday dhanka magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya madaxweynaha cusub ee Galmudug ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dawlad goboleedka Galmudug iyo kuwa heer federaal ee ku sugan deegaanadaasi Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa ka soo waramay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa kulan gaar ah magaalada Dhuusamareeb kula yeeshay hoggaanada kala duwan ee ciidamada amniga ee dawlad goboleedka Galmudug kuwada ku sugan magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay taliyayaasha sida xilkaasnimada leh ee ay u guteen waajibaadka inta kadib madaxweynuhu waxa uu aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay ka wada shaqaynta amniga iyo sugidda ammaanka deegaanada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa saraakiisha ciidanka ku wargeliyay inay u diyaar garoobaan sidii ciidamada Galmudug ay u xoreyn lahaayeen deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada Galmudug waxa kale oo madaxweynuhu saraakiisha ka codsaday inay si laba jibaaraan howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ay ciidamada ka wadaan deegaanada maamulka Galmudug waa kulankii ugu horeeyay ee saraakiisha ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa Galmudug oo la qaato madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor tan iyo markii la doortay Maxamed Cabdiweli Tooxow idaacadda kulmiye Dhuusamareeb shil gaari oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 qof ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Burco ee gobolka Togdheer Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan halkaasi inooga soo diray ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay tuulada Karasharka oo 30 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dadka dhaawacyada iyo meydka ayaa hadda yaala cisbitaalka guud ee magaalada Burco iyadoo xaaladoodana lagu dabiibayo cisbitaalkaasi wariyaasha ku sugan gobolkaasi ayaa sheegaya in gaariga dhacay uu ahaa nooca loo yaqaan noohada kaasi oo u safrayay magaalada Burco isla markaana ka yimid tuulooyinka u dhow gobolka Togdheer ilaa iyo hadda laamaha booliiska Soomaaliland kama hadal shilkan ka dhacay deegaankaasi balse waxaa la sheegayaa in wadooyinka oo halkaasi ka jajabnaa deegaankaasi uu gaarigu marayay iyo xawaare sare oo ku socday darawalku keenay shilkan ka dhacay maanta magaalada Burco shilalka dadku ku dhintaan ayaa ku soo noqnoqday deegaanada Soomaaliland iyadoo wasaaradda gaadiidka Soomaaliland sheegtay inay la tacaalayso
islamarkaana ay samaynayso waxyaabo ay ku xadidayso xawaaraha gaadiidka u kala goosha gobolada Somaliland. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. safaaradda Soomaaliya ee dalka Shiinaha ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladda Soomaalida ku nool gudaha dalkaasi gaar ahaan magaalada Wuhan oo uu ka dilaacay caabuqa coronavirus lagu magacaabo. Faysal Cabduqaadir Yuusuf ayaa warkan inoo haya. safaaradda Soomaaliya ee dalka Shiinaha ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Wuhan oo ah magaalada uu ka dilaacay caabuqa coronavirus oo haatan dunida walwal badan ku abuuray. qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in uu kurgaleen xaaladda caafimaad ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, isla markaana xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay hadda. safaaradda ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay inay iska warqabaan Soomaalida ku nool magaalada Wuhan, kuwaas oo tiradoodu ay gaarayso 50 qof. diblomaasiyiinta safaaradda waxay hadda ka dambeeyeen ay sii xoojin doonaan iska warqabkooda. safaaradda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ilaa iyo haatan aysan jirin qof Soomaali ah oo cudurkaasi ku dhacay. hadalkan ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee dalka Shiinaha ayaa imanaya iyadoo maanta wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ay bilowdo baaritaano lagu sameynayo dadka safarka ah ee isticmaalaya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. sidoo kale deegaanada Puntland iyo Somaliland ayaa laga bilaabay baaritaano la xiriira fayraskan dunida ka yaabiyay. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu sheegay inuusan aqoonsanayn doorashadii madaxweynaha dhawaan loogu doortay Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor kadib doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo dhawaan xildhibaano ay soo xuleen Ahlusunna wal Jameeca madaxweyne ugu doorteen magaalada Dhuusamareeb ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxaa gebi ahaanba uu ku sheegay inaysan aqoonsanayn doorashadii maalin ka hor ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee madaxweynaha cusub ee Galmudug loogu doortay Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. Sheekh Shaakir ayaa sidoo kale ku tilmaamay doorashadaasi inay u afduubneed dowladda Soomaaliya oo aysan cadaalad ahayn, dastuurka Galmudugna ay baalmarsaneed. qoraalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu beeniyey in wada hadal uu socdo Ahlusunna wal Jameeca iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale war-saxaafadeedkan lagu shaaciyey in Galmudug ay u baahan tahay midnimo, isla markaana beesha caalamka looga mahadcelinayo sida ay u raadinayaan Galmudug mid ah. Sheekh Shaakir ayaa sheegay in ay ka shaqeyn doonaan sidii midnimada Galmudug loo sii xoojin lahaa, isagoo ugu baaqay ciidamada ammaanka inaysan qayb ka noqon siyaasadaha isdiidan ee deegaanada Galmudug ka jira. markana Jubbaland. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dhammaan ciidankoodii ku biiray dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya dib gacantooda ay ugu soo laabteen. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo bayaaninaya. maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamadii ka tirsanaa maamulkaas ay dhawaan ku biiray dowladda Soomaaliya, isla markaana ay dowladda ay diiwaan gelisay ay dib ugu laabteen maamulka Jubbaland. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in ciidamadii Jubbaland ee lagu qasbay in maamulkoodii ay hore ugu baxaan ay haatan dib ugu soo laabteen sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay maalmahan ka hoolan tahay in xiisad dagaal ay ka abuurto gobolka Gedo, ha yeeshee ay ku guuldareysatay sida uu hadalka u dhigay. awood ciidan oo Jubbaland sii jirtay oo halkan ka jirto ayaga ay markay wasiirka xireen ay yiraahdeen wasiirku ay soo deeyay maamuladii iyo dadkii carradan joogay oo saraakiisha wadnaa ay ku yiraahdeen wasiirku ay soo deeyay raaco Jubbaland ka hormaada. bacdama wixii dhanay tahay ay dadkii ogaadeen oo dib u soo laabteen oo ciidamada daraawiishta Jubbaland ay xageeyeen Jubbaland dib ugu soo laabteen, muuqaalkooda ay cadeeyeen. maamuladii iyo saraakiishii loogu sheegay wasiirku ay soo deeyay oo liin Kenya qaadaha Jubbaland ay runtii ay soo doon markii arkeen ayaga ay soo laabteen dib u cadeeyeen inay nidaamkoodii si tabkooda ku soo noqdeen. nidaam dheer oo ay xukuumadda Jubbaland samaysay kabacdi waxa uu soo baxday awoodii jirtay oo Jubbaland oo daraawiishtii iyo shacabkii iyo maamuladii oo uu yaqaan sidoodii ah haddii wasiirkii iyo nidaamkii amni oo Jubbaland ay isku soo dhamaystirmaan isku soo wada laabtaan oo ay kala ayay ku imaanayo daniya Allah idin idin filayaan. waxaa ka socda gobolka diyaargarow looga hortagayo oo shacabka Jubbaland ay arrintaas uga hortagayaan baa socoto.
xilli walbana waxaa dhici karta isku horimaad inuu dhaco. dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay waxay ciidamo horle ay geysay gobolka Gedo. hadalka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli maanta lagu soo dhaweeyay degmada Balad Xaabo wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan kaas oo gacanta dowladda ka baxsaday maalmo ka hor. ma jirto ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gedo kaas oo beeninaya ama rumeynaya hadalkii ka soo baxay maamulka Jubbaland. weli waxaad dhageysanaysaan wararka caalamka oo aad kala socotaan radio kulmiye xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. markana akhbaaraadka kale ee dunida. maxkamad ku taala Koonfur Afrika ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay doonayso in la soo xiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma. maxkamadda sare ee dalka Koonfur Afrika ayaa amar ku bixisay in la soo xiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo ku guuldareystay maanta inuu hor yimaado maxkamadaasi oo muddadeeda in muddo ah la sugayay. Zuma oo loo haysto dacwad musuqmaasuq ayaa waxaa dadka u doodaya ay sheegeen in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsaneyn, balse maxkamadda ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay sheegashada qareenada madaxweynihii hore. qareenkiisa waxaa sidoo kale uu sheegay in baaritaano in lagu sameeyo ay ogol yihiin, islamarkaana horaantii bishii Janaayo lagu sameeyey ilaa iyo laba qaliin, welina xaaladiisa aysan wanaagsaneyn. Zuma oo xafiiska qabtay 2009 hayna ilaa iyo 2018 ayaa wajahaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq aad u baahsan, isagoo lagu eedeynayo in uu ku tagrifalay lacago gaaraya 2.5 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka, iyadoona sidoo kale la sheegay inuu iibsaday guryo waaweyn halka qalab military oo dawladdu ay lahayd la sheegay in uu musuqmaasuqay, islamarkaana taasi ay tahay khiyaano qaran. weli ma jiro wax war ah oo intaasi